mahadnaqaya ilaaha maanta halkan inoo suuro geliyay inaan iskugu imano oon ka wada hadalno mawaadiicda aad ugu soo kordhaya dhalinyaradeena iyo siiba caruurteena hadda haddii aynu isla eegno ereyga caruur haddaynu isla eegno shareecadeena islaamka waxay dhigaysaa in 15 jir wixii ka yar uu noqonayo caruur halka marka internationalku uu odhanayo wixii 18 ka yar oo teenage yearska noqonaya ayaa loo aqoonsanaya caruur marka wuxuu dhigayaa sharcigaasi in qofku markuu 18 gaadho ayuunbuu noloshiisa xukumi karayaa choiceskiisana uu qaadan karayaa diinteenu laakiin iyada laftigeeda iyo culturekeenu waxa weeyaan 15ka haddana culturekeenu ma u ogolaado dadkaas inay choiceskooga qaadaan waayo still waxaynu aragnaa caruur laakiin haddaynu qeexno uun waxaynu odhanaynaa 15 wixii ka yar baa caruur noqon doona aad iyo aad baad u mahadsantahay deeqa laba qaybood baynu ayaa loo qaybinayaa grade-kan moobilada isticmaalaya carruurta la idhaah 15 ka yar qaybta koowaad waa da'da 2 jirka ilaa 9 jirka qaybta kalena waxa weeye 9 jirka ilaa 15 jirka labadaa qaybood qaabab kala duwan bay u isticmaalaan teknolojiyadda kolley qaybaheena dambeenu ku ogaan doonaa daraasado badan baa laga sameeyey carruurtu sida ay u isticmaasho moobilada amba u gasho internetka qaybahee u badan waa su-aal muhiima maxay isticmaalaan carruurtu injineer axmed ayaa su-aasha usoo wareejinaya isticmaalka mobilku ama smartphoneska moobiladan loo yaqaano smartphones markay soo baxeen waa moobilo caqli badan leh oo matalan waxay sameeyaan inta badan dhalinyarta oo teenage-kan aan ka hadlayno waxyaalo badan oo mashquuliya ka buuxa by default games fara badan baa ku jira oo ciyaaraan marka la leeyahay ciyaalka yare isticmaalaya mobilka intooda badan waxay ka bilaabaan waa 3 jir iyo wixii ka weyn 2 jir isaga forbidden buu yahay oo WHO waxay lahayd inuu qofku 2 jir markuu yahay inuu mobil isticmaalo ka mamnuuca si isticmaalka ugu badan isticmaalayaan 3 jir ilaa 7 jir waxa weeye in YouTube wax ka daawadaan internet hadday wanaagsan yihiin waa haddii ay WhatsApp-ka isticmaalayaan hadlayaan family-gii waa soo far intaan ku arkayay research-yada laga sameeyay internetka ka buuxa waxa 9 jir ka weyn ee gaadhaya 15 jir intooda badan waxay ciyaaraan online games-kani markaa way badan yihiin qaarkood waxa weeye interaction bad qof kale la sameynaysa qofka interaction-ka la sameynaysid waxa ku jirta inaad chance xitaa chat inaad ku samaysid aad la hadashid qof strange ah oo dabeetana chatting la samaysto khatarteeda ay leedahay waa laga hadli doonaa hadhow se waxyaalaha ugu badan ay isticmaalaan from 9 years to 15 years waxa weeyaan waa gameska online intaasaan malaynaya inay badan yihiin aad baad mahadsantahay haddaynu weliba sii qeexno maxaa la odhan karaa dhibaatooyinka ilmaha yar uga iman kara adeegsiga mobilka iyo gelidda mareegaha internetka maxaa dhibaato ay soo gaari kara axmed baan su-aashaa ku celinaya dhibaatada soo gaari karta isticmaalka xadka marka la dhaafiyo limitkii lagu talagalay for example waana qayaxna horta intee in leeg baa lagu talagalay ilmahani inuu mobilka isticmaalo waana cayimaa inteenan ilmaha inta laga yimaado xitaa inteena dadkeena waaweyn screen time-keena hadduu fara badan yahay anugu baa malaa muraayadda ka xidhane muraayadaasi wax badan bayd ka caawinaysaa se inta aan muraayadda aan xidhnayn screen time-koodu fara badan yahay dhib bayda ku keenaysaa hadhow idinkoo waaweyn bay dhibaatada ku keenaysaa ilmaha yarna waxaan filaya dhibtaa ay ku keenaysa waa mid intaa ka weyn addiction bay ku noqdaan mobilka isticmaalkoodu waxyaalaha ugu badan aad arkaysid haddii aad baadhid dhibtay keenaysa waa behaviorkooda isbedel dhaqankooda xumaada oo dabeecadda ilmihii wuu ka xumaanaysaa waxay ku keenaysaa isticmaalkan faraha badan la mobilka markaas saacid ka qaad inuu kulaba dagaalamoba qaarkood waxaa laga soo warramaya in mobilada dadku turaan jebiyaan marka lala eego even xitaa wax kale iska daayo mobilka ka yara qaadid ama la yara eegtid inay jebinayaan ayay keenaysaa marka behaviorkoodu iyo dhaqankoodu uu isbedelo uu ku xumaado isticmaalka faraha badan leh aad uad mahadsan tahay professor jaamac oo su-aashaa ku daraya dhibaatooyinka iyo sidoo kale bal faa'iidooyinka uu ilmuhu ka heli karo adeegsiga mobilka
amaba gelidda internetka. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقورا إلهي ومهله هل كان ينقو كل ميي إنقو رنتي قضب آدياد مهم بلشدنا أيوبا هيهين فلنقينا إنا أصحابة برنامج كإنشنيركا وسوق منقابية iyo asxaabta kale iyaguna dooda qaybta ka aad u mahadsan yihiin iyo ka soo qaybgalayaashuba haddaan si toos ah u galo su-aasha injineerka la weydiiyey ee saameynta uu ku leeyahay mobilku ama guud ahaanba teknolojiyadda carruurta runtii waa saameyn aad iyo aad u ballaaran oo baaxaddeeda leh haddii la yidhaahdo faa'iidooyinka ama waxyaabaha carruurta ka faa'iidaana runtii way kooban yihiin marka la yidhaahdo xagga iyadoo marka horeba miidiyaha si guud qaybtiisa aan wanaagsan runtii ay fara badan tahay ayaa haddana marka carruurta la joogo waxa weeyaan faa'iidooyinku u leeyahay runtii aad iyo aad bay kooban yihiin matalan dhibaatooyinku u leeyahay ee carruurtu ay ka dhaxlaan waxaa ka mid ah carruurtu waxa ay ka bartaan gooni inay gooni noqdaan oo markay in badan isticmaalaan aaladaha kala duwan iyo mobilku kow ka yahay carruurtu inay noqdaan qaar gooni socda oo dadka had iyo jeer ay ka dhex baxa asxaabta aan la sheekaysanin ku mashquulsan iyagu waxa weeyaan qaybaha kala duwan ee maaragtay teknolojiyadda waxaa kaloo waxyaabaha ka dhasha ka mid ah xagga maskaxda oo saameyn lafteeda oo ku sameeyo xasuusta lafteeda oo waxa u geysto saacado fara badan markay hor fadhiyaan shaashadda iyo meelaha kala duwan ee wax laga fiirsado taasi waxay sababaysaa inuu ka go'o dadka dhexgalkii asxaabta la sheekaysigoodii iyo inuu qeyrkii raaco ayaa uu ka go'aya waxaa kaloo waxyaabaha ka dhasha ka mid ah carruurta inay buurnaadaan oo caafimaadka laftiisii markay saacado badan dul fadhiyaan oo dhaqdhaqaaq fara badan aanay samaynin taasi waxay keenaysaa inay miisaankoodu inuu kordho mar hadduu miisaankoodu kordhana caafimaad darro ayaa laga yaabaa inay ku dhacdo waxaa ka mid ah indhahoo kale boqolkiiba 90 daraasada la sameeyey waxay leedahay waxa weeyaan carruurta saacadaha badan hor fadhida ee aaladaha kala duwan ee teknolojiyadda waxaa khatar bay ku yihiin indhahooda oo waxaa laga yaabaa araggu inuu gaabto sidoo kale indhuhu ay engegaan ayaa dhici karta waxyaabaha kale ka dhasha waxaa ka mid ah xanuuno khatar ah oo daraasado la sameeyey waxay leeyihiin kansar baaba xanuunada laga qaada ka mid ah oo fallaadhaha ka soo baxaya shaashadaha iyo waxyaabaha la isticmaalayo ay keenaan waxaa kaloo ka mid ah qofku ama ilmaha yari in uu waxa weeyaan dagaal iyo cunfi iyo adkaan in uu ku barbaaro aaladaha kala duwan ee uu daawanayo iyo waxyaabaha kala duwan ee uu runtii fiirsanaya oo u badan inta badan waxa weeye sida filmadoo kale dagaal iyo wixii la midka ku saabsan qofku wuxuu ka baranayaa adkaanta cunfiga iyo waxa naxariis darrada waxyaabo uu ka barto ayaa ay ka mid tahay hurdadoo khalkhasha ayaa ka mid ah waan soo ururinaya waxbarashada lafteedu saameyn ku leeyahay si gaaran uga hadli doonaa dib u dhac ku yimaada xagga korriinka jirka ayaa iyadana la tilmaamaa inay ka mid tahay iyadoo ay sidaa tahay jaamacow da ma jirtaa ilmaha loogu ogol yahay inuu mobilka ku isticmaali karo iyo da lagaga joojin karo xagga da'da marka la yidhaahdo ha meelo badan baan eegay oo aan wax ka akhriyey waxa weeyaan runtii da'da munaasabka ah ama da'da habboon ee carruurtu ay tahay inay mobilka ay isticmaalaan dabcan markaad weliba eegtid dee xaaladdeena innaga oo meelo kala duwan markaad eegto iminka yurub iyo maraykan oo kale iyo waxa weeyaan si gaara macaahid ku yaalla jarmalka waxay leeyihiin 11 jirku iyo carruurta iyagoo ah way isticmaali karaan iyo wixii markaa kasii sarreeya laakiin markaad eegto oo kale xaaladdeena waxaad odhan kartaa qofku markuu dugsi sare dhammeeyo ayay malaha ku wanaagsan tahay inuu isticmaalo inkasta oo sida laynooga yeelayo ama sida laynooga qaadanaya ay runtii ay dee jawaab kale noqonayso marka wuxuu leeyahay oo kale matalan haddii xataa ay khasab noqoto isagoo dugsiga hoose ku jira arday qofku ilmaha yari ama ka dhaxaba oo da'da 10 uu ka yar yahay mobilka danka hadalka waxyaabaha oo kale matalan waalidkii kala xidhiidhaya iyo in la siiyo mala wanaagsan wixii dambana marka uu qaan gaadho ama uu secondary-ga dhameeyo inuu mobilka waxa smartphone-ka inuu helo ayay ku fiican tahay marka da'du ilaa iyo marka uu maartay waxa weeyaan qaangaadhka wixii ka hooseeya waxaan la odhan lahayn ma wanaagsana isticmaalka mobilka haddii laga maarmi waayana kaa yaree danka hadalka ah ee aan wax kale isagoo hadalka mooye aan lagu adeegsan ayay ku qurux badanta ku qumanta
waxaa jirta sawir caana oo baraha bulshada dhex qaada waxa weeyaan ilmo yaroo hooyadii dhegta jiidayso leeda soo xarood guriga soo gal oo dabaddii ku ciyaaraya looga taagi lahay dabaddan uu ku ciyaaraya oo waqtigii aan waa lodkayga aan odhan karay lodkan iga waaweyn lodka haatanna ilmihii yara waxa looga taagi lahay guriga ka soo baxo dabadda oo soo baxa marka waxay ku tusinaysaa heerka uu marayo adeegsiga moobilada ee carruurtu iyo sida loogu sii daayey waxbarashada ayuu taabtay jaamac su-aasha weliba aan ku celiyo waxbarashada saameyn togan iyo saameyn tabanba uu leeyahay adeegsiga moobilka iyo gelidda internetkuba intaas inoo soo koob runtii waxbarashada saameynta ku leeyahay mobilku aad iyo aad bay runtii iyadana u ballaadhan tahay waxaan kusoo oran karaa 6 qodob oo waaweyn oo runtii qodobo fara badan ay hoos imanayaan saameynta ka dhalata mobilka ama guud ahaanba ee tiknoolajiyadda kala duwan ee ardayda iyo da'yarta waxbaranaysa uu ku leeyahay runtii way xagga negative-ka badan ama xagga saameynta xun uu ku leeyahay ayaa runtii badan marka la eego waxyaabaha ay ka faa'iidaan waxaa kow ka ah gaar ahaan ardaydu markay dugsi hoose dhexeeda ku jiraan iyo secondarygeeba ardaydu waxaa kow ka ah inay dayacaan waajibaadkii ama shaqadii guriga loogu soo diray ee iskuulka loogu soo diray iyagoo ku mashquulaya dee aaladaha kala duwan ee ay daawanayaan waxaa laba ka ah in ay goobta dugsiga ama goobta waxbarashadaba ay ka baxsadaan oo ay ka tagaan oo qaar badani aanay jeclayn inay tagaan qaar badanna waxa weye xoog lagu soo kaxeeyo ama dabada laga soo riixo waxaa kale oo ka dhashay iyadana waxa weeyaan tayada waxbarashada ama hoosu dhac ku yimaado qofka waxbarashadiisa oo markaad eegto marar fara badan gradeka ama resultiga ama natiijooyinka ardayda waayadan dambe waxaad ogaanaysaa sida ay u hooseyso iyo sidii markii hore ay runtii ay ahaan jirtay iyo sida ay markaas barbardhig ku samayso macallimiinta iyo maamulayaasha dadka goobaha waxbarashada joogana aad runtii kala sheekaysato waxay kuu sheegayaan hoosu dhac runtii fara badani inuu jiro waxyaaba kale ka dhasho waxaa ka mid ah inay dugsiga dhexdiisaba ku seexdaan anuu macallin baana dhowr iyo 10 sano macallin ahaa mara fara badan baad arkaysaa ilaa jaamacadda ardaydii oo aad casharkii ama lecturkii aad u dhigayso oo runtii rukuucaya ama seexanaya ayaad arkaysaa waa saacadaha dheer ay runtii habeenkii kusoo jeedaan waxaa kaloo ka dhasha xasuusta oo iyo soo celinta xogtii la siiyey soo celinteeda oo runtii yaraata ayaa waxyaabaha ka dhasha runtii ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah qofku inaanu u dhug yeelan oo aanu aad u dhooxin macluumaadka iyo xogta la siinayo oo aad arkaysa maskaxdiisu inay baxbaxayso inuu kolbo meel u jeesanayo hadduu in yar israado waxa weeyaan si fiican wax u dhagaysto inaanu awoodu lahayn inuu u dhagaysto ee uu baxo maskaxdiisu ay baxdo waxyaabaha kale ka dhashay qodobka 6aad waxaa ka mid ah dib u dhac xagga waxbarashada ah oo si joogta ah ugu dhaca ayaad arkaysaa oo maaragtay waxa weeyaan ardaydii lasoo gudboonaada marka aad iyo aad macallimiintu aad bay u dareensan yihiin oo wax badan bay maaragtay hoos u dhaca hoose ee waxbarashada ku yimi in badan baa wax laga saarayaa mobilka iyo aaladaha inuu markaa isagu waxa weeyaan uu kow ka yahay oo uu sameeyo qodobka aad u mahadsantahay jaamac waxaana ku dari lahaa waxaa jirta mushkilad guud oo haysata soomaalida oo dhan marka la isku daro oo ah contentka ama content creationka wax la yidhaahdo abuuridda xog soomaali ah oo ilmuhu ka faa'iido ilmaha inagu soomaali baynu nahay luqadda soomaaligan ku hadallaa ilmaheennu intuu yar yahay intuu luqadaha qalaad baranaya waqti bay qaadanaysaa waxa dhacdo markaa waxa ku jira internetkuna waxay u badan yihiin ama ingiriisi ama carabi ama luqadaha kale dal kasta ama luqad kastaana wax u gaaray u abuurtay ilmaheeda innaga haddaad aragto soomaalida amaba dalkeennanba haddaad u fiirsato waxa u badan ee la daawadaa yar iyo weyn waa ama riwaayad ama hees intaa ma dhaafaan haddii maanta aad soo geliso barnaamij carruurta wax lagu barayo cidima daawanayso haddaad soo geliso barnaamij wacyigelineed cidima daawanayso waxaanay dad jecel xagga qosolka iyo maadda iyo sugaanta iyo fanka laakiin xogtii soomaaliga ahayd ee ilmahan uu wax ku baran lahaa ma jirto waa isagu waa arrin u baahan siyaasad qaran oo dalkeennu uu ka yeesho inaynu xog abuuranno aan ku socdo su-aalahayga waxaan su-aal la xidhiidha xagga psychologiga amaba korniinka maskaxda ilmaha ee adeegsiga moobilada saameyn ma ku leedahay adeegsiga moobilada in ilmaha maskaxdiisu amba hoos u dhac ku yimaado ama ay xoogganaato su-aasha waxaan weydiinayaa deeqa
bismillaah horta wax kasta ilaahay wuxuu u sameeyey in faa'iido iyo faa'iido daro uu yeesho internetku moobiladu faa'iido iyo faa'iido daro ayay leedahay in badan waxaynu ka soo hadlaynay wuxuu xumeeyaa ama waxbarashada ama laakiin anu dhinaca kale haddaan ka eego waxaan aaminsanahay ilmaha haddii aynu sida saxda ah aynu u barno sida loo isticmaalo inuu isticmaalayo ashyaa fara badan uu noqonayo qof smart ah oo adduunka la socon karaya waa haddaynu sida wanaagsan u barno laakiin waalidkii iyo dhallinyaradii ka waaweyneyd walaalihii ka waaweynaa ayaaban u isticmaalayn si saxa iminka haddaynu bulshadeena eegno waxaan tiktoka la idhaahdo wuxuu gaadhay heer khayrulcaadiya waxaad arkaysaa hataa hooyooyinkeeni ayooyinkeenoo something yacni haddaad aragtid waad isla yaabisay qofkan maanu qof weyn hayn taana waxaa keentay waxa weeyaan inay inagu khalad u fahanay haddaynu eegno siyaasadda dadkan maaragtay caddaanka ee applicationadan sameynayaan waxaan aaminsanahay in loo sameynayo in muxuu ahaa waa africa hoos loo dhigo waa adduunkii haddaynu taariikhda dib ugu noqono africa waxay ahayd meeshii cilmiga laga qaadan jiray cilmi diiniya haddii noqotay cilmi maadiyaba maantana waa continentka ugu hooseysa kuwa kale marka la eego markaan waxaan aaminsanahay caqligeenii ayaa waxaa ay barteen kadib waxaa loo ataagareeyey in hoos loo dhigo hadday muxuu ahaa markaaynu ka hadalno korniinka maskaxda ilmaha ma saameyn karaa mobilku haa uu saameyn karaya waxaan u saameyn karayaa anuu waxaan aaminsanay more positive than negative shay kasta oo muxuu ahaa haddaan anigu ka eego negativekaas man arkaya anigoon markaa eegeen positive haddaynu eegno imika waqtigii muxuu ahaa koronaha waxay teknolojiyadda inoo saamaxday inaynu casharadeena sii wadno teknolojiyadda inoo saamaxday inaynu muxuu inta internetka galno assignmentkii iyo wixii laynoo diray aynu ka shaqeyno sax waa runoo qof ilmihi yaraa mararka qaar buu teknolojiyadda si khaldan u isticmaalaya oonu xataa waxaan ogahay waxaa jira applicationo ay carruurta ku ciyaaraan markaa gabadh baa ka sheekeynaysay maalin dibadda joogtay applicationkan markaa waxyaabahan iminka homosexualka la idhaahdo ayaa lasoo dhexgeliyey marka ilmo yaraa game buu ciyaaraya waxaa soo baxaya homosexuality inay caadi tahay waa ilmi yaraa la aaminsiinaya waalidkii baa qaadaya waalidkii markuu eego ma usoo baxaya wixiyo gamekii caadigaaba usoo baxaya taas waxay ku sheegaysaa in applicationkani mobilkani ay garan karayaan xataa qofka isticmaalaya which age buu maraya waana ta keenaysa markaa in waxaan la doonayo in lagu ataagareeyo carruurta inay heli karayaan si easily marka haddaynu psychologyga eegno saddex habba wax lagu bartaa hadday noqoto carruurta iyo dadka waaweynba ta koowaad waxa weeyaan waa associational learning in shaygii xidhiidh laga sameeyo iminkoo kale ilmihi yaraayoo kale lagu idhaahdo waxaa muxuu ahaa waxa waxbaro ama like grades wanaagsan keen waxaad noqonaysaa dhakhtar weyn in shay yani xidhiidh laga sameeyo oo ilmi yara ama wuxuu ka cararayaa muxuu ahaa in wax la waayo ama wuxuu ka cararayaa ama wuxuu u cararayaa in wax faa'iido talabaad waxa weeyaan waa operational learning tan badanka markaa waxa weeyaan consequences baa lagu daraa carruurta haddaad xasuusataan berigii hore aniga laftigayga qoladii 90s-kan ku jiraayay haddii muxuu ahaa berigii hore la xasuusto waxaa jirta muxuu ahaa waxaa lagu odhan jiray familigayga waxaa ku jiri jirtay haddaad kaalinta koowaad ama kaalinta labaad ama kaalinta saddexaad geshid in lagu casho geenayo marka arkaysa xaafadii oo dhan inaan la casho geenayo adiga waxay kugu qasbisaa inaad kaalinta koowaad geshid laakiin with time taasi way iska soo baaba'aysaa marka waxay waa hab kale oo ilmaha yar uu wax ku baran karayo marka hadda tan telefoonka oo kale ilmaha yar wax ka odhan karaysaa grade wanaagsan keen telefoon baan ku iibinaya waana dhacaysaa ilmihi yaraa grade wanaagsan buu keenaya ta saddexaad oo ah tan iminka la isticmaalo ah modeling waana ta ugu badan inagu I think culturekeenu isticmaalo ah wixii aad aragtay waad samaynaysaa imankoo kale inanku markuu yar yahay aabihii buu arkayaa jimcaha in la meedho marka aabihii hadduu 12 u kacayo salaada inankeen markuu yinaado for sure 12 salaada u kacaya laakiin markuu arko qofkii aabihii inuu 10 u kacayo salaada uu diyaar garoobayo isaga waxa ku dhalanaysa inuu noqdo shay uu true modeling ku bartay marka tiktok imika haddaad u fiirsidid dhallinyaradii waxay sameeyaan ayuun bay carruurtii sameynayaan ama dadkii dibaddu waxay sameeyaan iyagu daawadaan ayuun bay haddana iyagu sameynayaan markaan waxaan aaminsanahay yes way saameynaysaa waxaana u saameynaysaa si positive iyo negative ahba masalan haddii aanu habdhaqanka carruurta ka hadalno habdhaqanka carruurta saameyn intee leeg buu ku leeyahay internetka iyo mobilkuba
horta diinteenu inoo sheegtay dhaqanka wanaagsan kuu yahay internetka haddaan maanta ka galo anu horta waxaan aaminsanay su-aal kastoo diinaya anuu internetka ka eega more than inaan sheekh weydiiyo because internetku wuxuu ii keenayaa haddii anugu si yarna shuyuukhdeena u dhaleeceeyo waxay ka hadlaan un mawaadiicda iyaga favorkooga ah alwataan anuu aaminsanahay so internetka marka anuu weydiiyo wax kasta ha noqoto internetka waan weydiiyaa waan galaa macal daliilkii baa iila socda marka haddaan iminka anuu isticmaalayo internetka iminka waxba shakiga galeen waan weydiiyey habdhaqankaygu u hagaagay laakiin haddaynu isticmaalno shay aan wanaagsanayn of course shayga wanaagsanaa habdhaqankiina uu ku xumaanaya marka waxaa dhacdo badanka in culturekii uu ka tagaan ay ka tagaan dadkeenu oo iminka haddaynu dib ugu noqono waxyaabaha social media lasoo dhigo waa waxaan culturekeeni iyo diinteeni aan ahayn totally waxaana dhacdo badanka xataa in ay soo baxaan soomaali badan oo diintii ka baxayo christianity noqonaya ta keenisa waxa weeyaan waa telefoonkan badan ee la isticmaalayo oo qolka lagu jiro wuxuu ilmuhu noqdaa antisocial oo dadkii ma jecla inuu dhex galo mid baan ku dari lahayo ah tii hore laga hadlay content creationka anugu gurigayga waxaan ka mamnuucayba in laga daawado filmada carruurta waayo waxaaba carruurta anugu ku yidhiba filmaanta carabta iyo ingiriisiga iska daawada waayo haddaad u fiirsatay filmaanta carabta iyo ingiriisiga loogu talagalay carruurta wax anshaxumaayo ku hadlayaan ma jirto filmaanteenan iminka tiifiyada laga sii daayo tiifiyadeena soomaalida waad ogtihiin waxyaabay ku wada hadlaan waxaad maalindhoodan waan arkay in macalin taagan ayaa arday u soo gelaya soomaali waa lagu hadlay of course miyara soomaaliguu fahmaya intuu soo istaago ayuu ka odhanayaa ayuu yani af xumo macalinkii kula hadlaya den ilmihii yara maalintii labaad wuxuu keenay aniga af xumo igula hadlo marka haddiinu xataa content creation sameyno waxaynu sameynaa content carruurteenii habdhaqankoogii saameynaysa hadhowna waalidku wuxuu isweydiinaa ilmi yaraan fursadan u noqday de idinkaa sababay you know waxaad badankana waxay isticmaalaan waa afay xamar baa la isticmaalaa in waxyaabaha xataa caydee lagu hadlayo cay bay barteen tiina waxaa keenaysa waxa weeyaan inaan inagu ka fikirno okay ilmihi yaraa waxaan uu daawanayaa Tom and Jerry oo kale haddii loo turjumayo in waxyaabo wanaagsan oo af Soomaali wanaagsan oo habdhaqan wanaagsan loogu bedeli karayo kolley waxa jira haddana qaybo muhiim ah oo ay tahay in waalidku amba macallinku uu ilmaha ku baro inuu ka isticmaalo mobilada ama internetka qaybahaasi maxay noqon karaan ay faa'iidada badan uu ka heli karo jaamac baan su-aasha weydiin runtii dee waa midi laba af leh oo faa'iide iyo faa'iido darro labadaba runtii waa uu leeyahay shay walbana waa sida caadiga ah waana wax iska dabeeciya inuu labadaaba yeesho xagga suluuga oo kale haddii aan intaan su-aasha u gudbana aan yaro tago ama dhaqanka habdhaqanka uu kaga tago carruurta mobilku qodobkii aan ku bilaabay ahaa inuu cunfiga iyo dagaalka baro ayaa runtii ka mid ah tusaale haddaan soo qaadano matalan rabadaanta oo kale waxaa la soo daayaa filin carruurtu ay aada u jecel yihiin oo saxaabada runtii laga matelay kaa markay daawadaan waxaad arkaysaa natiijadiisiyo markiiba banaanka taalla waxaan inta badan aragnaa xaafadeena dhexdooda carruurtiiyo sariyanaysa isula baxay waxa weeyaan dhangada isku eryanaya midle anigu Khaalid bin Waliid baan ahay adiguna Abu Jahal baa tahay qaarkood dhaawac baaba isgaarsiiyeen sanadadii ugu dambeeyay dhakhtarka ayaaba qaar la geeyay marka waxaad arkaysaa cunfiga iyo dagaalka inay runtii ay ka baranayaan waxaa kaloo ka mid ah suluukiyaadka ama dhaqanka aan wanaagsaneyn ay carruurtu ka bartaan xagga xidhiidhkii waalidka ay la lahaayeen ayay runtii aad iyo aad u yaraanayaan oo kuwa ka matelay riwaayado waxay yidhaahdeen inan iyo hooyadeed guri wada jooga ayaa ishaleeli waayey inay wada hadlaan xataa inay wada hadlaan bay mid islaantana Facebook bay furatay inantina Facebook bay iyaduna leedahay marka intay wada sheekaysan lahayn xataa ayay ishaleeli markaasay marka ay u baahato in wax loo keeno ama alaab oo kijada wax looga soo qaado islaanta messengerkee fariin uga diraysa waxaa leeyahay hooyo bladeeka yaalla kijada soo qaad way sag fadhiyaan moogtahay markaasaa waxa weeye iyaduna ay kusoo jawaabayso hooye ma yaallo marka wada hadalkii xataa waxay yidhahdeen mushkilad xagga hadalka ayaa hadhow qof ku dhacaysa waayo inta badan waa qof dhurmaya laakiin haddana aan hadlayn wuu hadlayaa qofkii oo kan wax qoraya haddana ma hadlayo taa lafteeda waxaa laga yaabaa in suluukiyaadka laga bartay dhaqanka laga barta ayay ka mid tahay su-aasha aan usoo waxa weeye haddaan u daadego waalidka runtii waxa weeyaan xil badan iyo mas-uuliyad badan baa runtii saaran
waxaa kow ka ah dee wacyigelin. Waalidka horta waan ognahay dee innaga lafteena waalidka wax bartay intuu leeyahay kaan wax baran waxyaabo fara badan runtii ayaa dee halkaa iyaduna taagan. marka waalidka waxaanu ka rabnaa wacyigelin inuu carruurta u sameeyo joogto ah. waxa weeyaan iyaga laftooda in la wacyigeliyo marka hore waalidka oo barnaamijyada caynkan oo kale ah runtii loo qabto oo waxa weeyaan waalidkii laga dhaadhicinayo khatarta uu leeyahay mobilku iyo sidoo kale qaybta wanaagsan ee uu leeyahay si looga faa'iideysto. waxaa kaloo iyaduna waalidkii habboon inuu sameeyo marka isaga la baro marka hore kadibna waxa weeye ubadkiisii isna wacyigeliyo. qodobka labaad xeerar inuu u dejiyo waalid waliba oo matalan oo kale isticmaalka xilliga la isticmaalayo inta la isticmaalayo xaddigeeda intuu la ekaanayo lafteeda waalidkii ubadkiina isla meel dhigaan. sidoo kale inuu isla meel dhigaan waxa weeyaan waxyaabaha mamnuuca ah iyo waxyaabaha haddii aan mamnuuc ahayn ee laga daawan karo aaladaha kala duwan. waxaa kaloo muhiima iyadana qodobka saddexaad in la sameeyo research iyo baadhis. inagoon ogna waxaynu waa hadalun inta badan iyo oral baynu ku hadalnaa laakiin cilmi baadhis saxa in la sameeyo oo taabanaysa waaqicina iyo mobilku bal halka uu taagan yahay iyo waxbarashada iyo ardayda iyo dhaqankooda iyo waxyaabaha uu ku yeeshay. waxaa kaloo muhiima in la qabto workshopyo kala duwan oo iyadana lagu tababarayo waalidiintii saan horeba u sheegay. waxaa kaloo qodobka shanaad oo ugu muhiimsan runtii aan odhan karaa carruurta yaryar damiirkooda waa in la dhiso. damiirkooda qofka bini'aadanka inaad tiraahdo inuu kaa boqdo oo uu adiga ishaada iska ilaaliyo oo waxaa intaad la joogtana uu iska ilaaliyo intaad ka maqan tahayna runtii uu sameeyo faa'iido badan ma keenayso. marka waxaynu u baahannahay damiirka carruurta in la dhiso oo waxa weeyaan iyagu waxa wanaagsanna ay ka fiirsadaan waxa xunna ay iska xidhaan marka uu soo galo. wixii faa'iido u ah inay ka eegtaan wixii faa'iido darro u ah runtiina iska ilaaliyaan. waa qodobka muhiimsan. waalid badan baa sameeya in carruurta TV-ga laga qafulo in looba diido guriga aan la soo dhigin. ciyaalka maxay sameeyeen way wareegayaan jaarkii bay tegay midaan adigu aanad xukuminba oo waxyaabo kaloo khatar ay ka soo geli karaan baabay tegayaan. marka waxaa loo baahan yahay damiirka intaa uu iska ka ilaalin lahaa inaynu qofka damiirkiisa dhisno waa ta ugu muhiimsan ma odhan karaa. qodobka lixaad ee waalidka la gudboon waa qiyamka wanaagsan ee islaamka in carruurta lagu barbaariyo ee quruxda badan xishoodka alla ka cabsiga dhaqanka aan wanaagsanin qofku inuu diido oo isxakameeyo ka wanaagsan inuu markaa waxa weeye sameeyo. qodobka ugu muhiimsan runtii waa kaasaa la odhan karaa. kaalintii dugsiga aynu isna dee ka hadli doonaa oo isna gaara insha allah. waxaa jirta in badanna laga hadlay caafimaadka weliba caafimaadka carruurta saameyn ma ku leeyahay mobilku mise kuma laha. raseejo badanna waa laga sameeyey. su-aasha caafimaadka la xidhiidha kolley deeqa inoo soo horkoobi. horta caafimaadka markaynu ka hadlayno oo developmentkii ka mid ah horta qofku marka hore waxaynu badanka focuska saarnaa waxa weeyaan waa physical development. mar walba waxaynu ka fikirnaa un qofkani hadduu dhuuban yahay waxaynu leenahay qofkaas waa qof aan si wanaagsan u develop garoobin. qofku hadduu buuran yahay waxaan leenahay qofkan waa qof xaafadiisu ay cunto siin jirtay. so waxa anu odhan lahaa muxuu horta caadiyanba inaynu ka fikirno qofkan social developmentkiisa physical developmentkiisa mental ama brain developmentkiisa iyo waxyaabahan oo dhan inay isku xidhnaan karayaan. taasina waxay keenaysaa watii uu ka dhawaajiyey in waalidkii la baro waxyaabahan oo dhan. psychologigu malaha waa qof keliya halka fadhiyaanahay waana mawduuca aynan in badan aynan aaminsanayn inuu ka hadlo laakiin dhexdiisa gudihiisa xataa isagu kama hadlo psychology still wuxuu ka hadlaa physical health. marka saameynta mobilku wuxuu ku keeni karaa sidii hore loo sheegay in qofkii uu hurdo la-aan ku keeni karayo in qofkii uu indho xanuun ku keeni karayo in weight gain iyo weight lossba uu ku keeni karayo oo weight loss wuxuu noqon karaa qofkii dee qof maaragta calooshiinu markay ku dareensiisay inaad gaajoonaysid waxa jira storage bilaaday markaad wax cuni weydid storage-kii biyadu isku kafeenaysaa. waxaa odhanaysaa waad dareentaa waan jeclay muxuu ahaa inaad in yar gaajootid kadib xoogaa kadib gaajadii kaa tagto. so ilmihi yara markuu gaajoodo isagoon keeninba inuu cuntadii dalbado ayaa markiiba haddana ay gaajadii ka tegaysaa. also waxay ku keeni kartaa in developmentkiisu slow noqdo. maskaxiyan markaa developmentkiisu slow noqonaya also physical slow noqonaya because ilmihi yara kama qayb gelayaba waxyaabo physical ah ama kubad ha noqoto ama basketball ha noqoto ama social development ha noqoto wax activities ah uu ka dabageli karaya uu ka qayb geli karaya ma jiro.
anxiety issues baa keeni karta oo ilmihi yaraa inay cabsi badan ay ku keento inuu dadka dhex galo ama uu qolkiisa kasoo baxo intaasaan anu is leeyahay waa ku koobi karaysaa waxaa jira sidoo kale ilmaha yar in cunfi badan ama dagaal badan laga arko sida uu jaamac sheegay marka waalidku u diido isticmaalkii mobilka cunfiga ama dagaalkaa badan ilmaha laga arkay sidee baa loo waalidku u xallin karaa horta cunfigu wax kasta waxay ka imaadaa waa genetic iyo environment baa isa saameeya haddii familigu marka horeba family cunfiya yahay environmentkiina ay ku qasabtay ilmi yaraa inuu cunfi noqdo qasabka cunfigu noqonaya laakiin marka hore waxay inagu culturekeena ahba in dagaal wax laisku baro so dagaal bal ugu soo korinaya adna dagaal bal carruurtaada ku korinaysaa so marka hore anu waxaa odhan lahaa horta bal dagaalka meesha laga saaro carruurtan dee le inagaa doonan oo dhalne in marka hore bal horta dagaalka meesha ka saarno marka hadalka wanaagsan ama kelmadda wanaagsan waa shay aada u qaaliya walaashay baa waxay leedahay 2 carruur ay leedahay Sweden bay markaa ay ka yimaadeen ku nool yihiin kadib waxaa dhacday maalin anagoo video call ku hadlayna ayaa jirtay playstation guriga yaalay baa iigu dhaaday rakeedka keentamaysa kuri waa soo xaday sigur booliiska ku sheegaya waa halkay gaarsiisan yihiin waa 7 years old bay gule waxaa soo xaday booliiska ku sheegaya waanay og yihiin waxaa khaldan iyo waxaa saxsan maalinta sabtidii axadda weliba sabtidoo keliya ayay ciyaaraan maalintaana waa game bay ciyaarayaan internet ma isticmaalaya maalmaha kale xataa haddaad u dhigto iyagaa koonaya no maalinteedii may gaadhin marka anu waxaa odhan lahaa yani waxaa taa keeni karta inaynu kelmad wanaagsan aynu kula hadalno carruurtii oo inaynu kasoo qaadan dadkan waa carruur waayo imika dee carruurba maahay dadka carruurtii imika iyagaa naga caqli badanba waa sax waa arrin in badan burburkii kadib baa la dareemi karaa bulshada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay baa la odhan karaa social engineering ama dib u qaabeyn bulshay u baahan tahay cunfigaas uu jiraa uu ka sheekeeyey jaamaciyada deeqba ay sheegeen waana dareemi kartaa waxa u badan ee la keenay lagu ciyaaraa waa hub iida waxay ku tusaysaa in halkan wax si yihiin ma sababta hubka loo keenaya waa maxay loo keeni waayo waxyaabo kale ilmaha korniinka maskaxdiisa kor u qaadaya barnaamijkan saameynta mobilada ama internetka ku leeyahay carruurta waa stakeholders badan baa isugu imanaya marka laga hadlayo in laga sameeyo siyaasado amba laga dejiyo xeerar waxa u horeeya waa dowladda shirkadaha isgaarsiinta mutacalimiinta gaar ahaan caafimaadka psychologiga waalidka iyo macalinka qof laga maarmaya ma jiro marka la isleeyahay siyaasad ha laga sameeyo waxyaaba aan horey Soomaalidu waxba uga dhigan in xeerar la xiriira waxaan Axmed weydiinaya ama injineer Axmed doorka ay shirkadaha isgaarsiintu ku leeyihiin ama shirkadaha adeega bixiya ay ku leeyihiin kala shaandhaynta waxa ku jira ama laga daawanayo mareegaha internetka waxa weeye waa meel lagu talagalay qof walba inuu wax ku soo sheekareeyo waa international network isku xidhan oo ballaaran marka shirkad internet ay bixinayso inta badan waxay isticmaalaan qalab firewall loo yaqaano oo controla contentka dadka ka iibinayaan website-yada qaarkood intooda badan nasiib wanaag waddankeena way ka xidhan yihiin website-yada weliba inappropriate-ka contentka soo dhigaya foosha xun leh kuwaasi way xidhan yihiin oo shirkadaheena internetka bixiya sida Telesom iyo Samtel iyo so way wada xidheen qaarkood inta badan dee dhalinyarteenu ciyaalka yar ma garanayaane VPN iyo waxba inta badan isticmaalaan si bypass ku sameeyaan taasna waxaan filayaa wixii 15 jir ka yaray oo ku yar adagtay waxaan rajaynayaa warkaas inaan la gaadhsiin doonin marka contentka internetka marka laga yimaado qolada ISP-ga wireless-ka ku yaala xaafadda laftarkiisa waxa la socdo kuwa dambe wax loo yaqaano parental control oo la xakameyn karo saacadaha internetka la isticmaalayo waxyaalaha laga isticmaalayo aad history even la socon kartid meeluhu booqday adigoo dee yar sheegareynaya aan ku dheeraanayn marka control fara badan waa la samayn karaa waxaana rajaynayaa ISP-du intoodii badan way sameeyeen si game ma xidhi karaan oo dee waxa weeyaan profit fara badan baa laga samayn karaa laakiin wixii inappropriate videos ahaa ama website la booqanaya ahaa ISP-du inta badan way xidhaan waana la xidhi karaa صح waxaa jira sidoo kale inkastuu mowduuc aad moodeen si uga yar baxsan yahay waxa weeyaan wax kasta oo qofku internetka ka eego waxa loo soo raaciyaa xayeysiis taa macnaheedu waxay tusaale ahaan
google-kaad gashay waxaad ka baadhay addis ababa facebookaad tegaysaa 2-3 jeer baad addis ababa ka baadho waad yar eegtay facebookaad tegaysaa wax lagu xaysiinaya hodheel addis ababa ku yaalla game baad ciyaaraysaa wax lagu xaysiinaya meel kale oo addis ababa ku taala marka ilmaha yari waxa uu ka isticmaalayo baa xagga uu baadhayo google search kama uu ka isticmaalayo ama facebook uu ka isticmaalayo waxa uu ugu tegayaa gamekii uu ciyaari ayuu ugu tegayaa marka waa meesha isku xidhan adhiskuna ama xayisiisyaduna waa halka keliya ay internetka wax lagaga faa'iido facebooka bilaash waad ku isticmaashaa laakiin isagu muxuu helaa adhis buu helaa xayisiisyuu helaa kolley gabagabadii baan kusii jirnaa waxaan jaamac weydiinaya su-aal la xidhiidha iskuullada iyo macallimiinta waa meesha aad mooddo inay ugu muhiimsan tahay marka waalidka laga imaado ee wax looga sheegi karaa ilmaha ilmuhuna macallinkiisa wuu jecel yahay hadduu si fiican wax ugu dhigo uu ku xidhan yahay wuu jecel yahay waa maxay doorka waalidka iyo macallimiinta u yaalla ee la xidhiidha saamaynta ay mobilada internetka ku leeyihiin carruurta waayahay bismillah runtii marka la eego macallinka iyo iskuulka oo isku mid uun ah runtii iyo iyagana waxa la gudboon ama waxay tahay runtii inay ka qabtaan intaanan u gudbin qodobkaa waxyaabaha runtii saamaynta ah waxaa ka mid ah carruurta de waa loo sheekeyn jiray saa ogtihiin waa kii injineerkuna taabto dhaqankii hore oo sheekada iyo sheeka xariirada iyo waxyaaba fara badan oo caynkaas iminka taa marka dee waalidkaa u sheekin jiray carruurta ama ayeeyada ama qofka dee xogta badan haya oo sheekooyin dhaqankeenna ku saabsan oo qofka oo waxyaaba fara badan oo caynkaas iminka laakiin isma haleelana dee waa ogtihiin waxa weeyaan waalidkana laga yaabo inuu kuma mashquulsan yahay ilmo yarana markaa sheekooyin badan oo maskaxdiisa macaa koriya waayo sheekadu maskaxday korisaa qofkana khayaalkiisa ayay dhistaa sheekooyinkii runtii waxaan sidii loo xiisayn jiray sheekooyinkii cabdifalaash aabbahay waa garanaysaan cabdifalaash baa aniga aabbayaa aad bay ciyaalku ugu xidhnaayeen muddo ka hor laakiin imanka waxa weeyaan runtii oo kaalin baad moodaysay inuu buuxiyey xilligaa iminka laakiin waxaad mooddaa inaan ma garanaysaa waxa weeyaan qodobkaasi meesha ka baxay oo carruurtii in loo sheekeeya wax badan runtii ayaa ka taraysay waxaana keenay baa la odhan karaa qaybaha kala duwan ee lagu mashquulay meediyaha haddaan usoo noqdo su-aasha macallimiinta iyo waalidka macallimiinta iyo baan leeyahay dugsiga runtii waa kaalin aad iyo aad xooggan baa iyagana saaran dad fara badan oo iskaashaday baana xalka keeni kara laakiin iyaguna qayb muhiimay ka yihiin macallinkii iyo iskuulkiiba waxaa saaran wacyigelin runtii inuu sameeyo hadday noqoto ardayda oo ay waxa weeyaan gacanta ku hayaan iyo hadday noqoto ardaydan ciddii dhashay oo waalidka aba dugsigu inuu wacyigelin sameeyo aad iyo aad bay muhiim u tahay waxaa kale oo iyaduna muhiima in curriculumka lagu daro manhajka ayaan qabaa iyadana oo waxyeeladiisa iyo faa'iidadiisa labadaba runtii cashare ka hadlaya ee lagu dhigto si qofku uu fahmo waxaan faa'iidadiisa iyo faa'iidadiisa runtii uu qaato marka waa in lagu daraa cashare ka warramaya aaladaha iyo gaar ahaan mobilka waxaa kaloo iyaduna muhiima oo iyadana runtii aan soo jeedin lahaa goobaha waxbarashada isaga laftiisa in dee loo sameeyo xeer loo sameeyo marar badan macallimiinta iyo ardayda waxay isugu dhacaan waa mobilka ama waxaad arkaysaa arday badan oo iskuulkii laga eriyey sababtana waxay waa mobilka maamulihii iyo ardaydu isla dhiban yihiin macallinkii iyo ardaydu isla dhiban yihiin runtii markaa waa in xeer loo sameeyo oo maamulkii iyo iskuulkuba ay runtii xeer hoosaad u sameeyaan xilliga la isticmaali karo waa runuu mararka qaarkood ardayga waxbuu uga baahan karaa oo internetkii waxbuu kasoo maaragtay wax loo diray buu kasoo qori karaa laakiin xilliga la adeegsanayo iyo maaragtay wixii la midka ah inay xeer u sameeyaan baa ayaa iyadana quman oo cunfigana una aan lagu wadani laakiin bal wax la isla qaato oo carruurtii waxa weeye dagaalkana waa tii deeqay runtii sheegtay inaan dagaalku wax badan ma soo kordhiyo oo carruurtu dagaal wax alla waxay ku qaataan ma jiro markii la eegayna dilitaan iyo hanjabaad iyo dagaal meelna uma wado waxa weeyaanuun runtii in maaragtay waxa weeyaan lala sheekaysto damiirkooda la dhiso xeer loo sameeyo wax lagula heshiiyo ayay ku wanaagsan tahay iminkana daad bayna qaatay qofka yidhaahda anu mobile carruurtii u iibin maayo ama t v ma daawanayaan dee waa runtii way ku adkaanaysaa aad iyo aad bay ugu adkaanaysaa marka in sida wanaagsan looga faa'iidaysto oo lala jaan qaado ayaan iyadana markaa odhan lahayn marka macallinkii dugsigana kaalinta caynkaas oo kale ah ayaan filayaa inay ku habboon tahay aad baad u mahadsan tahay kulley waa sidaa ay sheegeen
waa in gurigu dowlad yar noqdaa marka laga hadlayo adeegsiga teknolojiyadda. dhowr talo muhiimina way jiraanoo habeenkii marka la seexanayo inuu waalidku wirelesska xidho oo uu xidho oo ka baktiyo ilmaha. sidoo kale gurigaba cumuuman in laga xidho wirelesska habeennimadka marka la seexanayo. sidoo kale waxaa ka mid ah in ilmaha yar 2 saacadood ama 3 saacadood ka hor aad moobilka ka qaado xilligu seexanayo, waayo soo jeedkan badan screen time kuu sheegay injineer Axmed, screen time ka badani wuxuu ka kaxaynaya hurdadii subaxiina waa kaa kuu kici waayey. kolley dowlad ahaan ama wasaarad ahaan siyaasadda adeegsiga moobilka iyo gelidda internetka ayaanu wadnaa, taasoo aanu kaashanayno dhammaan qaybihii kala duwanaaye aan hore usoo sheegay, rajaynaynana in bal wax badan weliba ay teknolojiyaddu xaggii soomaaliga uu ku yaryahayna in soomaali badan aan adeegsano. barnaamijkeena gabagabadiisii ayaanu gaadhnay. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa tiimka halkan ila jooga. intaynaan ka bixin waxaan idiin daynayaa su-aalaha aad weydiin doontaan baanalka. ciddii su-aal haysa si toosay weydiin iyadoo aan ku dheeraan, waxaana markiiba ka jawaabaya isla su-aasha baanalka cidda marba aad su-aasha weydiisay hadduu alla idmo. aad iyo aadna ud u mahadsantihiin. waxaa jira imika wadamo badan oo laga xidhay adeega tiktok oo kale oo awood u yeesheen iyagu wasaaradooda qaabisho, inagu wasaaraddiinu ma qaabilaysaa? waxaa jirtay jimcayaasha qaar ciyaal shidaada u yima jiray, xarunta dhaqanka ima jiray iyo meelo kale ima jiray oo ciyaal ku maaweeli jireen. su-aasheeda intaas ay nagu jirtaa. السلام عليكم مقعي وحلا حسين وعبد الرحمن waxaan weydiinayaa walaashay Deeqa Xasan. runtii anigu waxaan fahmi kar waayay maanta horta hooyan hay 2 carruur leeyahay. waxaan fahmi kar waayay reasonka weyn uma garanaysaa internetku ma garanaysaa carruurteena uga baahan yihiin. gartay teenagerka 15 jir ilaa wax ka sareeya ayagaa dee waa dad waaweyn oo ma garanaysaa waalidku ku qasbi karaan baran karaan. bas maanta ilmaha yaree ma garanaysaa 2 jirka ama 4 jirka muxuu uga baahan yahay maanta internetka ee waalidka Soomaalida ugu qasbay inay carruurteena moobilka ugu dhiibaan. ilmaheena hadad ka jirtay asagoo intaa AGC yar yahay oo waayo moobilka iyo internetka runtii mushkilad weyn baad xalinaysaa. asagaa raadinaya wax kale inuu ku ciyaaro moogtahay, asagaa baxaya, asagaa alcaab kale markuu keentid wixiisa asaga ku jeesanay. bas runtii anaga waalidka Soomaalida qalad kuridka iska aamusi sidee hoo sii bahal kabad oranaysaa. runtii anaga iskaga furanna maaha dhibaatadu maaha carruurteena, dhibaatadu waa waalidka. marka su-aasheedu waxay tahay carruurteena miyay u baahan yihiin from 4 sano ilaa 4 sano wax ku kala garanayaan 4 sano ilaa magarasa 9 sano miyay u baahan yihiin internetka iyo moobilka mise waa maya? su-aasheedu waxa weeyaan aan injineerada weydiinaya, sidaan wada ognahay waxaad ka dhawaajiseen goorahan baanu maqlaynay sidii controlka ubadka looga control lahaa internetka iyo moobilka. ta koowaad siduu ustaadku sheegay inuu waalidku uu internetka xidhaa, taas waa iga talo hore. waalidku waxaanu internetka u xidhay waxaa jirta wax data use la idhaaho goonidiisa uu isagu ugu shubanaya amba ha yaraada amba ha weynaada, taasi lama controli karay. su-aashaydu waxa weeyaan 2013 imika Mark Zuckerberg waxa looga yeedhay guriga cad ee Mareykanka. waalid badan oo u cawday in control ay uga sameeyaan indhala-aan iyo dry eye wax la odhanayo indhaha ay ubadkoodii amba waqtiguu ka luminayo, inuu limitation u sameeyo oo uu u xadido waqtiga ay waxbarashadoodu yaraato amba ay waxbarashada kasoo baxayn loo sida. wasaaradda isgaadhsiinta iyo teknolojiyaddu ma loo sameynaya mustaqbalka amba iminka ma leedahay amba hididilada ma ugu jirtaa in ay waalidku ay usoo dacwoodaan qayb ay uga soo dacwoon karaanoo ay dee bareefadada ay gacanta u geliyeen internetka iyagu intay u hooga saaraan in ay bal ubadku markay soo dacwoodaan whatsappkii iyo facebookii iyo kale laga xidhi karayo. insha allah su-aasheeda waxaan doonayay inaan weydiiyo inanta, bal waxaad suuraysataa hooyo ilmo dhashay oo ilmihii wuu koray wuu weynaaday, marka ilmihii yaraaba maalmaha ka miduu iri hooyo waxaan doonayaa inaan salaaddii tukado. markaad waxay ku tiri, wuxuu weydiiyey ma takbiirtaan ka tagaa ya mise waan ku bilaabaa? hooyadii baa ku tiri hooyo bal googolka weydii, googolkaynu weydiinanaay malaha googolkay su-aasha saxdaa ku jirtaay. kadib waxaa dhacday ilmo yaroo googolkii buu galay, googolkii buu weydiiyey, wuxuu arkay dee maqaalo aada u fara badan, qoraallo aada u fara badan oo ka warramaya takbiirtii in la akriyo, qaar ka warramaya in laga tago, waayo suu sheegayay inankaa dhexdow wax kasta waa la soo gelinayaa. marka ilmihi yaraa wuxuu la kulmay mid sheekh odhanaya
anigu salaada takbiirta haddaad ka tagto waa caadiye iska tuko markaa uu qaatay ilmihii yaraa kiibuu qaatay iyagoo kuwii kale saxda ahaana ay ku jiraan kadib waxa dhacday markuu sii baxayay uu ka sii baxayay ii sheeg mobilka uu doonayay inuu salaadii u dhaqaaqo ayaa waxaa kusoo dhacay xaysiis yaroo ama gabadh qaawan oo kale aduu wax dee anshax xun kadib salaadii markuu galo ayaa qorshoodii ka tagtayo ilmihii yaraa wuxuu soo xasuustuun sawirkii uu kusoo arkay markuu kasii baxayay bal mas-uuliyadda intaa leeg yaa qaadaya dalkeenna waad ogtihiino suuqa isgaadhsiinta waa suuq xora oo maaha mid ay dowladi leedahay 1989 ayay dowladaha adduunku furfureen isgaadhsiimihii ay lahaan jireen innagana waktigaasunbay shirkadaha isgaadhsiintu bilaabmeen oo 95 meelahaas ayay bilaabmeen suuqa isgaadhsiinta xorta ahi wuxuu ka koray xeerarkii iyo shuruucdii dowladdu lahayd taasoo mid la wada ogsoon yahay oo wasaaraddu iminkay ka daba tegaysa doorka wasaaraddu ay ka leedahay arrimaha noocan ah waa kala hufidda iyo in la kala shaandheeyo waxyaabaha internetka ka imanaya taana waa awaamir ay siinayso shirkadaha isgaadhsiinta maaha qaab technical oo qalab ah inay ugu xidhanto laakiin waa awaamir ay siinayso iyo baadhitaan ay ku samaynayso iyo korjoogteen iyo kormeer mar kasta ah oo ah maxaa meesha lagu hayaa maxay shirkadihii soo daynayaan maxay shirkadihii bulshadii maxaan idhahdaa ay la wadaagayaan arrinka ah whatsappkaas oo kale aad sheegtay mid haddaad wada ogsoontihiin baan u malaynaya dhammaan social mediahanu naqaanaa waxay ku wada odhanayaan ilmaha yar 13 jir wax ka badani wax ka yari ma samaysan karo idinkuba waad aragtay markaad facebooka samaysanaysaan haddaad 13 ka yar tahay laguma ogola laakiin adigoo 10 jir ama 9 jireed gelinaysaa 1990 iyo khalaas waad samaysatay halkaa waxaa imanaya waa doorkii waalidka waa in waalidku eegaa ilmihiisan yare 9 jirka ah inantaad sheegtay oo kale maxay bahalkan ku falaysaa ay ku isticmaalaysaa halkaa doorkii waalidkaa maqan oo aan meeshaba ku jirin mushkiladda ugu weyn ee waalidka haysataa haddaan anigu fahamsanahay waxa weeye waalidkii iyo ilmihii yaraabaan aqoon ahaan islaba jaan qaaday innaga waynu ogsoonnahay waalidkana dhalay 80% ka midi aqoon may lahayn aqoon had inta lehina waa aqoon kalaasiga oo waa history geography ama dictor in teknolojiyadda garanaysaaba way ku yartahay 100% hal wax ka yar weeye marka halkaa waalidkii baa ka maqan arrinka cabashada ahaa wasaaradda waa loola soo caban karaa wasaaraddu waxbay kala qaban kartaa hadda waxaanu sameynay habraacyo loogu talagalay cabashooyinka iyo xafiisyo waad u soo caban kartaa wixii su-aal la xidhiidha arrimahaasna waad weydiin kartaa waanan ku soo dhaweyna insha allah aad baad umahadsan tahay labadii su-aalood ee deeqa inanka su-aashiisan ka horeynaya inaan kuu soo wareego anun biisheegay horta muxuu ahaa anu takbiirta ka tegi maayo waa kow haddii aan ilmo dhalana kuma odhanay googleka weydii anaa uga jawaabi doonaa waxaan aaminsanahay ilmaha yar inaynu inagu u dirno inuu isagu internetka wax ka baadho ayaaba khalad ahba maadaama waalidkii uu meesha joogo in waalidkii marka horeba yani la socon karayo marka ugu horeysa waxa weeye in ilmi yaraadii salaada la baro diinteena ayna baraysaa ilmaha yar marku 10 jir gaarin salaadii lagu dilo intaa wixii ka yarna ilmi yaraa lagu la bari karayo marka in ilmi yaraa uu yani anigoo kale inaan wax ku mashquulsanahay aan ku raado warora dee taas waa khalad waalidka saaran marka horena waxa weeye in ilmi yaraa uu haysto safe environment oo wax kasta oo noloshiisa ama socialkiisa ha noqoto ama telefoon ha noqoto ama meel kasta ha noqoto in waalidkii kusoo noqon karayo weydiin karayo kadib waalidku uu sixi karayo haddaanu waalidku garanayn dee waalidkaa khalad kale ayaan odhan lahaa anu waayo waalidku waa inuu isagu raadiyaa haddaan ku noqdo su-aashii inantii horta mobil wuxuu uga baahan yahay ma jirto mobil wuxuu ilmaha yar uga baahan yahay ma jirto haddii inaynu inagu iskaga fadhiisanayn ilmaha yar waxaa tabletka loogu soo iibiyaa maaha in isagu inuu wax ka faa'iidaysto waxaynu ugu soo iibinaa waxa weeye inuu kaa aamuso oonu ku mashquulin waayo adigii baa ku foorara runta markaynu ka hadalno qofkii markuu shaqada kasoo rawaxo isagaa ku foorara telefoonkii isagaa sirrinta la jiifa isagaa ku seexanaya
so ilmihii yaraa maba doonayaba inuu dee yani mashquuliyo ma doonayo haddii markaa qofkaasoo kale dee uu ilmaha yar dhalayna qofkii isagaa usoo iibinaya tablet laakiin haddaynu ka hadalno baahi uu u qabaa ma jirto in mobile ama tablet loo soo iibiyo haddaynu odhanno ilmaha yar yani waxaa jirta activities waxaa jirta horta in 4 types psychology u qaybiyo parenting styleska laba shay baa ilmaha yar inooga baahayay in baahidiisa aynu ka jawaab celino iyo wuxuu isagu doonayo iyo inaynu xuduud u sameyno koowaad marka waxa weeyaan authoritarian waxa loo yaqaano oo ah waalidka dictatorka isagu xuduudiisa badan wax baahi uu kaa rabaa ma jirto saasaa rabaa saa samee weeyaan sida maxaan u sameynayaa ayaad odhan kartaa anaa kuuliya samee permissive baa jira oo ah waalidka isagu wax xuduuda aan lahayn oo isagu wax kasta iska samee koornaya you know just in the uu ka aamusoon ama ilmihi yaraa uu yani aanu ku daalin waxaa jira mid la yidhaahdo neglectful oo ah ilmaha yarkani maba keer garanayaba waxuu respondna u sameynaya ma jirto wax demandna u sameynayaana ma jirto ka ugu wanaagsan ee laisla qaatay in caalamka uu ku wanaagsan yahay in waalidiintu isticmaalaan waxaa loo yaqaano authoritative waa ka markaa xuduudda ilmaha yarka baahidiisa inaad ka jawaabtid wuxuu doonayo iyo in isaga laftigiisa aad xuduud u samaysid marka haddaynu isleenahay ilmaha yar waxbuu ka baran karayaa waxaa jira tv-yo imika youtube-ka ku xidhmi karaya so tv-ga inta loo shida ilmaha yar sida salaada loo tukado fili kartoon uu ka daawan karaya waalidkiina isagoo arkaya isagoo markaa u baahneen ilmaha yar in loo soo iib marka waxaan odhan karnaa ilmaha yar internetka uu u baahan karaya bcause waalidku waxyaabo badan yani isagoo ay tahay in wax badan uu baro haddana ilmihii yaraa wuxuu ku nool yahay bulsho dadkii wax la dhiganayay ay telefoon isticmaalayaan oo haddaanu waxtaan telefoon haysan lagu caayi karayo marka ilmi yaraa inaan still laga saarin bulshadii uu isaga laftigiisa uu internetkii ku dhex jiri karayo laakiin under control isagoon telefoon ama tablet u gaar ah aanu lahayn waxaan ku yara dari lahaa in marka hore kula talin lahaa in aynu caruurta la sheekeysano oo waxaa jirta qolada cadaanku waxay leeyihiin in cashadoo kale ama qadadoo kale ama quraacdoo kale la wada quraacan karayo tii waxay samaynaysaa ilmihii yaraa inaanu u baahan waqti uu isagu keligii joogo ama waqti uu asxaabtii xataa u baahdo waqtiga waa waqtigii familiga fadhiiso waqtigana waa waqtigii seexashada wixii ay isticmaalaysa iska xidh waalidiinta waxaan jira iminka barnaamij la sameeyey oo think box loo yaqaano waad iibsanaysaa markaa waxaad ku xidhaysaa internetkaagii telefoonada carruurtaada waxaad ogaan karaysaa ilmihii yaraa internetkii miyuu galay mise muu gelin waad ka xidhi karaysaa waxaad ogaan karaysaa ilmihii yaraa gurigii ma jooga mise uu ka maqan yahay been buu kuu sheegi karaa ilmaha yari waxaad schedule garayn karaysaa xilliga ilmaha yar uu internetku ka xidhmayo iyo xilligaanu ka xidhmay laakiin waxaasoo dhan ba inagoo geliyaan waxaan aaminsanahay in ilmaha yar aynu trust siino because markuu 10 jir gaadho ilmaha yar wuxuu isku aaminsan yahay inuu qof weyn yahay inamadaba ha u bataane so wax kasta haddaynu inagu diidno inagoon fahansiinin waxay taasi keenaysaa inuu ilmihi yaraa rebellious noqdo hadhow oo adigii yani ku arka maxaad waxaan oo dhan iigdiidaysaa intaasaan ku koobi lahaa waxaa jirta waan ilaaway su-aashii uu inankaasi weydiiyey waxa loo yaqaan waa cyber bullying ama soomaaliya ku noqonayso xoog sheegashada internetka in qof kale uu xoog sheegto hadda cagsiga ku dhacdo inantiiba inankii la ballantay laakiin inta badan sida u dhacdana waxa weeye in inta badan inamadu ay u xoog sheegtaan hablaha marka la isticmaalayo social media amaba in ilmihii yaraa sawirro qaldan uu diro qof kale oo in badan ka weyn kadibna mashaakil badan uu ka yimaado injineer axmed baa tibis arrinkaa la xidhiidha bal ina yar siinaya horta wadaada carbeed baa laga hayaa erey aad cajaayib u ah wuxuu idhi isnac min allaymuun sharaab xilow oo ah liin dhanaanta ka samayso sharaab macaan cabitaan macaan marka liintii tusaale waxay noo noqonaysaa waa mobilkii u yaalla xaafadaha inta badan vast majority waa yaalla dee imkana dib looma iibin karo lamana tuuri karo sidee baa loola dhaqmayaa aniga waxaan isleeyahay su-aashaasa ugu muhiimsan kama soo hadhayso xakameyn fara badan in la sameeyo in laga warhayo ilmihii yaraa mobilka isticmaalayay kolleyba inteeda badan waynu soo iibina way haystaane sidee baan u maamuli karnaa marka dhowr qodob baan isleeyahay waa muhiim ee waalidka la xidhiidha ayaan halkan kusoo gudbinayaa horta ilmaha laba jirka wax gaadhsiisan horta ha u ogolaanin mobil inuu isticmaalo 2 years old isaga iska ilaaliya wixii 2 years ka badan ee ka waaweyn ayuunbaan halkan focus ka saari doonaa saacadaha mobilka la isticmaalayo waa in waalidku xadidaa
toddobada maalmood isbuuca miyuu isticmaalaya imse saacadood buu ka isticmaalaya 24 saacadood uu haysto waa in limit loo sameeyaa waa inaan loo bannayn every time inuu mobilka markuu saa u yimaado toos uu isticmaali karo u geli kara meelushuu doono ee se limit loo sameeya taas waa qodobka koowaad qodobka labaad instead of mobilka ku mashquulsan yahay activity kale u samee kubadda hadda doontaan wada ciyaara chess soo qaado shaxda ku ciyaaraya guriga activity kale aan looga baahnayn mobil iyo computer u bedel waayo mobilka haddaad tiraahid limitkiisi matalan waxaan ka dhignay 1 hour in la isticmaalo matalan khamiistoo kale ama sabtidoo kale or 5 days in a week aad tiraahid 1 hour baan ku ogolay inta kale waqtigii soo hadhay waa inaad ugu buuxisaa activity kale qodobka saddexaadi waalidku waa inay noqdaan model wanaagsan dee adigu guriga markaad timaadid mobilkaad la soo kala baxdid ilmihiina kula hadlayood mobilka ku foroortid 1 year later maxaad ka sugaysaa talabaadaad u qaadaya adigoo la hadlay isna mobilku la soo bixi dabeetana uu kula sheekaysanaya waanu kula hadlay halkana farriin buu ka diraya marka adigii baa markii hore model wanaagsan aan noqon waxaad isku daydaan markaad la hadlaysaan horta mobilka iska dhiga dabeetana attentionkaaga weliba physically attentionkaaga oo dhan isu wada jeeso adigoo sii jeeda haddaad la hadashid waxay keenaysaa hadhow inuu isna kaas yaro turko marka model wanaagsan noqo waqtigaad cuntada cuni sidoo kale mobil isticmaalka iska daa uu ku arkaya berribad kugu dayanaya xaqna uma lihid inaad ku qabsatid raayad qadee mobilkana iska dhig adigina aad qadeynaysid mobilka isticmaalaysid marka model wanaagsan waa in waalidku noqdaa waxaan kusoo koobaya dhowr qodobo kale saacadaha la isticmaalayo dambe habeenkii oo kale markuu sii seexanaya mobilka waa ka mamnuuc waa inaad tiraahdaa matalan qolkii qolku ku seexanayay waa inaad ruul u samaysaa tiraahdo waa mamnuuc finally waxaad u sheegtaa wax walba oo internetka ka akhriya inaanu rumaysan laakiin uu baari karo inaanu rumaysan oo kula iman karo kulana sheekaysan karo aad bay qodobadu badan yihiin waxaan dee seedii kula talinaya waalidka in IT-ga iyo technology-ga wax badan ka bartaan si ay u badbaadiyaan yaryarkeenna ilaahayna ha noo badbaadiyo waad mahadsantihiin shuruuc baa waddanka taalla waddan walibana wuxuu leeyahay ethics gaara iyo qiyam gaara buu leeyahay marka waxa dee wasaaraddu ay runtii ku ammaanantay inay hormuud ka ahayd inay markii horeba ay ka howlgashay oo ay hirgelisay in dhammaan operatorada waddanka ka jira ay hirgeliyaan mashruuc ah in contentka dadka bulshada loo sii daynayo la filter gareeyo technology-gu waxaan ka qayb qaatay shir caynkan oo kale oo technology-ga lagaga hadlayo 11 jir ilaa 15 jir ay ka hadlayaan ay halkaas oo kale soo fadhiyaan marka waxyaabaha ay kaga hadlayaan waxaa ka mid ah internetku ama technology-gu saameyn buu nolosheeda ku leeyahay mustaqbalka marka inaanu qayb ka noqonno technology-ga iyo jihadu u socdo ayay ku doodayeen caruurta oo ay runtii ka hadlayeen marka caruurta yaryar qaar baa ah CTO ah oo ka hadlaya inay cure soo saaraan ama dawo ay soo saaraan xanuuno iyagoo isticmaalaya technology-ga ama waxaan artificial intelligence ka isticmaalaya qaarna waxay caruurta barayaan coding sida loo code gareeyo programmada loo sameeyo iyo waxyaabaha wax la mid ah marka runtii inaynu caruurtii dee discourage garayno maaha waa future-ka runtii xagga loo socdo laakiin si nidaamsan in runtii looga dhaadhiciyo in aaladda internetka laga faa'iidaysan karayo qaab maaragtay positive-ana runtii looga faa'iideyn karayo bulshada iyo mujtamaca oo dhan dhammaanteed waqtiga covid-ka waxaa runtii jira qolada ITU-gu waxay leedahay waxay dhahdaan child online protection waxaana keenay waxan waa global challenge inagoo keliya hatay nama haystaan adduunkoo dhanna uu la daalaadhacayaa sideen u control garaynaa contentka internetka ku jira marka challenge guud oo dadkao dhan wada haysta weeye marka ITU-gu waxay soo saartay guidelines ay ugu tala gashay waalidka macalinka iyo caruurta intaba loogu talagalay marka qof waloo rabaa waad access garayn karaysaan google-ka waana geli kartaan oo ITU waad search garayn karaysaa waa maxay guidelineskaas marka guidelineska qofku soo daabacan karaya ama iskuul ha ahaado ama other industrieski waxa ha ahaadaan marka taasna waxaan islaawan the opportunity u sameeya dadka uga faa'iidaysto aad baa mahadsan ustaad markaynu caruurta ka hadlayno khaasatan caruurta yareedeedooda ka yar tahay 4 sano amaba intaa 8 jir dhaxaysa waxaynu u dhiib waxaa jira u baday af soomaaligu ku adkaado oo aan hore u baranin af soomaaligii
si aynu u barno af soomaaliga waxaan dhahnaa daawatiya filin karto af soomaaliya isagaa baranaya markaa ficilkii arko tv-ga ama mobilka uu ka arkee bacdiin saameyn bay ku yeelan kartaa inuu af soomaaligii uu tv-ga mobilka un la sheekaysto laakiin dadkii hareereysnaa ee faamilkiisa ahaa aanu la sheekaysanin oo dee ay dhacdo ilan qofkan lama sheekaysanayo ee uu mobilkii yidhahdo waa la sheekaysanaya seen uga jari karnaa ama baan ugu samayn karnaa madadaalo karo oo aan ilmihii ku samayn karno inuu af soomaaligii noogu barto innagoo ka taxadirayna saameynta togan ay ku leedahay mobilka runtii luqadda lafteeda soomaaliga ayaa khalad oo ama ereyo lasoo gaagaabiya oo aragteen oo af soomaaliga dee saxda ah lafteeda iyo xarfihii ayuu saameyn macaa ku leeyahy oo qofku inuu wax saxa si saxa wax u qoro waxa ma awoodi karaya wax wada gaagaaban buu kuu soo diraya iyo xarfo isdaba yahaya oo waxa la waxayeen runtii waa rumuus ama waa uunu halku dhigayo oo aanad fahmi karahaynin marka taa lafteeda waxaa loo luqadda lafteeda buu mushkilad ku yahay waxaan isleeyahay uun waxaa lagu yarayn karaa oo carruurtana dhaqankii iyo dee luqadii iyo wixii aynu hidaha u lahayn lagu bari karaa dee waa in waalidku kaalintii uu hore u buuxin jiray runtii uu buuxiyo oo uu u sheekeeyo carruurta in loo sheekeeyo aad iyo aad bay muhiim u tahay waa qodob runtii aad in badan looga hadlo oo culimmada ee ku takhasustay cilmiga barbaarinta inta badan ay ka hadlaan carruurta in loo sheekeeyo iyo sida maskaxdooda runtii u ballaadhiyo iyo waxyaabaha looga sheekeynayo runtii sheekada lafteeda waxaad uga sheekeynayso ayaa fariin baad dhex marinaysa oo sheekadu fariin bay xambaarsan tahay dhaqankii hore carruurta matalan ilaa markuu dhabarka lagu sidaa hooyooyinkeen waanu garanaynaa way u haysti jireen maca waxay uga sheekeyn inuu geesi yahay inuu caynkan yahay oo awooyaashii caynka ahayd waxyaabo fara badan oo caynkaasa taasi markaa adigu waad la yaabasa waxaad nusanio qofkan weynee la sheekaysanaysa ilmaha yar waa maxay laakiin nuxur badan baa ku jira carruurtii in lala sheekeeyo oo halkaa ay moobilada ku jeesan lahaayeen waalidku soo celiyay kaalinta horaan ayaa runtii soo jeedin lahaa oo uu u sameeyo waqti runtii u sheekeeyo oo ay aad iyo aad u xiiseeyaan oo sheekooyinka dhaqankeenii iyo maaragtay qiyamkeenii wanaagsanaa xambaarsan oo runtii uga sheegay marka kaalintii waalidka ayaa runtii bannaan odhan karaa marka dib ha loogu noqdo insha allah firon adeero ahaybaa wuxuu ii soo dirayay fariimo sadhaasi ka buuxaan sadh iyo b for ben iyo waad garanaysaan dhalinyartiina aad ka isticmaasha marka waxaan ku celiyay dhowr sheeran ku yidhi in soomaaligaaga hagaaji markaasuu haddana wuu soo celiyaa war soomaaligaaga hagaaji markii dambe guri meesha waa malcaamad ba markaasaan ku yidhi war malcaamad maalin markaad soomaaligaaga soo hagaajisay la hadal saacad kadib oo soomaaligiisii hagaagsan buu ila soo hadlay marka waxay kutusaysaa haddaad ku celceliso ku tiraa sidan saxa wax looma qoro I don't know sedho marka computerka laga hadlayo xarafkaasaa lagu dhuftaa faryarada marka u dambaysa waabay adag tahay in sedh la gaadha istaaba kaaga fudud waayuu sedho isticmaalaya aad baad u mahadsantihin runtii barnaamijkan nagala soo qayb gasheen kelmadda u dambaysa barnaamijkeenaan siinaya agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda agaasima aamino oo nala joogta oo nagala soo qayb gasho barnaamijka aad iyo aad nood u mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله waxaan salaamayaa dhammaanba martidan ka soo qayb gashay caawa munaasabadan muhiimka iyo mudanayaashan iyo marwadan panel discussionka ka qayb galay sidoo kale waxaan salaamayaa aasaasaha xarunta dhaqanka hargeysa doctor jaamac muuse jaamac waxaan ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa muhiimad gaara bay lahayd weliba waalidiinta iyo haweenka ay u lahayd munaasabadani waxaase aan ka xumahay inay haween yar oo tiro yar ay kasoo qayb galeen sidaynu ognahayna marka laga hadlayo caruurta iyo caqabadaha hortaagan way badan yihiin tan technologyguna ta ugu muhiimsan ee waqtigan aynu maanta joogno ugu mudan bay ahayd ka wasaarad ahaana waxaanu aragnay in xaaladdu ay faraha kasii baxayso marka waxaan isnidhi bal meesha ugu fudud ee laga joojin karaa waxa weeyaan iyadoo laga soo bilaabo guriga iyo dhallaanka laga soo bilaabo khataraha uu technologygu inagu hayaa aad bay u fara badan yihiin markastoo horumar uu sameeyo tadawur laga gaadho haddana khasaarihii baa garab socda in waqti badan uu inaga qaato caawa inuu ka faa'iidnay inuu caafimaadkeennii saameyn ku leeyahay inuu waqtigii saameyn ku leeyahay cimrigii saameyn ku leeyahay sidoo kale maalkii iyo lacagtii labadaba uu saameyn ku leeyahay waxaana wanaagsan maadaama aynu fahanay mashaakilka inagu hayo inaynu uga guurno dhinac kale oo maxay ahayday aynu kaga hortegi karo khatarahaas soo jeedinaha badan ee caawa halkan aynu ka maqlaynay iyo kuwo kaloo badan oo
aanu seshanada dambe kusoo qaadan doono waxay u baahan yihiin inaynu ka howlgallo ka wasaarad ahaanna waxaa naga go-an runtii technology-ga horumarintiisa iyo sidoo kale inaanu dadka ka wacyigelino dhibaatooyinka uu keeniyo inaanu ka wacyigelinaa waa waxa ugu yare aanu samayn karno wasaarad ahaan marka dhammaantiinba aad baa u mahadsantihiin waxaan salaamayaa oo u mahadnaqayaa xarunta dhaqanka iyo doctor jaamac muuse jaamac oo inta badan arrimaha bulshada door wanaagsan ka qaata oo barnaamijyada noocan oo kale ah runtii aada ugu badan yihiin xarunta waxaan rajaynayaa inaynu caawa wax badan halkan ka faa'iidnay haweenkuna waa inay maadaama ay yihiin macallinka koowaad ee ilmuhu leeyahay waa inuu macallinkaasi u hagaago haddii hooyadu xumaato oo runtii ay hooyo dee dayaacad fara badan la timaada ay noqoto ilmaheedii bay ka muuqanaysaa mustaqbalkiisay saameynaysaa qarankana waa saameynaysaa generationada dambe soo socdana waa saameynaysaa marka waxa wanaagsan in aynu guriga ka bilowno wacyigelinta ka bilowno intiina caawa halkan timi waxay noqonaysaan fariinta inaad qaadaan oo runtii gaadhsiisaan dhalinyaraa kolley u wada badan tihiin way yar tahay malaa waalidka ku jira halkan laakiin walaalihii baa jooga annagana barnaamijkan maadaama dad badan haween badan caawa aanay halkan ka muuqan inaanu haween badan gaadhsiino ayaanu haddii la yidhaahdo ku dadaali doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi